السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيا أبشر حسن اشتفتم أنيقو أهمنا محمد عبدي جانلك أبشر حسن اشتفتم على أبا إذن كل وذاقة بروغرامو كسابسن علم نفسي إيا علم بالشدة psychology and sociology أما sociology and sociology أبشر با هالكام فديا طبعا بروغرامada tan waxaan kasoo maxaa la yiraahdaa munguurinaa ama kasoo qaadanaa dad aqoon u leh oo ma aragtay baaritaano iyo research iyo ma aragtay waxyaalo badan sameeya badanaana ma aragtay markaa kadib presentation iyo ummadda usoo gudbiya si maxaa la yiraahdaa dee ma aragtay macluumaadkaasi bulshada nolosheeda ay wax uga bedesho anaga waxaan u malaynayaa inaanan si fiican ugu baraarugsanayn siiba markay noqoto dhanka caruurta sidaa darteed ayaan isku taxallujiyaa in dee anigu intii ma aragtay ummadda rabta in la soo gaarsiiyo oo ay fahmaan oo markaa iyaga aanan u sahlanayn kasoo qaado kale luuqadda tan waddankan aan ku noolnahay dadka ku nool qaarkood inaysan ma aragtay fahmi karin in aan anaga soo gudbino si dadkii ma aragtaa ay maxaa la yiraahdaa macluumaadkaas u helaan waxaan ku guda jirnay programkii resilience factoren ama resilience factories waxaan soo gaarnay qodobkii afaraad ee ahaa self efficacy selbstwirksamkeit naftaada ood wax ugu taal anigu waan awoodaa inaan wax qabsado waxaan qabsadana waan ku qanacsanaa caruurta uu degan yahay dareenkooda in ay ayagu wax qabsan karaan waa dad yaqaan awoodooda iyo adkaysigooda waana caruur isku kalsoon naftooda barawdku ah waa caruur awoodooda og in ay hadafkooda iyo ficilkooda ku gaari karaan waxay kaloo hagi karaan waddada ay u mari karaan hadafkooda si aad caruurtiina ama si aan caruurteenna qodobkan ula xoojino ama ula xoojisaan waa in ay nolosha maalinlaha ah go-aamadeeda laga qayb gashaa waa in la weydiiyaa waxay rabaan amase rabin matalan yacni markay guriga yimaadaan in la weydiiyo homeworkiga waqtiga ugu fiican ay concentration samayn karaan oo yacni iyaga lala maxaa la yidhahdaa aan go-aan lala gaarin go-aanka iyaga lala gaaraa in matalan hadday guriga howl ka qabanayaan waqtiga ugu fiican ee iyagu markaa go-aankooda gaaraan ay dhahaan markaasaan qolkayga hagaajin karaa ama hadduu jikada laleeyahay wax ka samee ama qashin soo daadi yacni waqtiga asaga ugu habboon inuu go-aan ka gaaray aan loo gaarin go-aanka wax walbaba inay qaabka iyagu rabaan loola habeeyo waxaa kaloo muhiim ah hadday wax masawiraan ama wax dhisaan in ay meel ay dhigtaan mar walba ay arki karaan cunugu kasoo qaadoo kale maxaa la yidhahdaa dhagaxyaashan oo la isa saaro oo maxaa la dhahaa caruurtu ay ku ciyaarto bauishtaan may dhahaan jarmalku wax saasay dhahaan hadday wax ka dhisaan ama cunugu uu masawir fiican uu masawiro oo wax beyngareeyo yacni in si trofee camal ah meel uu ka arki karo loogu dhigo si uu mar walbaba kalsooni u dareemo inuu waxa kan quruxda badan asugu sameeyey oo indhaha uu ku hayo ilaa iyo muddo waqti dheer ma aha si ay isha ugu hayaan waxay sameeyeen waxaa kaloo muhiim ah inay waalidku wixii wanaagsan ee cunugoodu sameeyo ku ammaanaan kuna qiimeeyaan taas ayaa fududayn karta in waddada horumarka uu cagta saaro ilmahaasi inuu waddada horumarka cagta saaro ogaadana inuu naftiisa wax u gaari karo marka aad u bidhaamisid
kartida iyo aqoonta uu leeyahay ilmahaagu wuxuu dareen u yeeshaa awoodda kartidiisa iyo dhiiranaantiisa. sidaa darteed waa muhiim intay ilmuhu yar yihiin in isku day badan lagu garab istaago. marka ilmahaaga ka qayb qaataan ama guriga ku soo bandhigaan waxyaalo ayagu ay sameeyeen oo awood u leeyihiin, kaba soo qaadoo kale cunugaagu hadduu hobby ahaan uu karateegoo kala sameeyo oo uu soo qaato upstation bay dhahaan Jarmalku, I don't know Englishka wax lagu yiraahdo, suun uu kusoo guuleysto, amaba dugsiga quraanka intaa geysid uu ma aragtay jus soo dhameeyay ama si fiican quraanku u akhrin karo, uga dhig in uu guul weyn soo hoyiyay cunugaasi oo uu wax badan oo qurux badan oo wanaagsan inuu sameeyay oo aad mar walbaba tustid uga dhig. kasoo qaadoo kale haddaad dabaal geysid oo upstation-ka ugu horeeya Jarmalku waxay dhahaan Seepferdchen, C iyo Pferdchen waa faraski, buu soo qaataa. waxyaalaha kaloo dhan waa ku xigaan gold iyo Seepferdchen-ka waxaa ku xiga u malaynaa silver metalia ka bacdi silver ka bacdi gold, hadba meel buu ka gaaraa cunugu. wax walba uu cunugu gaaro oo uu sameeyo u tus inuu wax gaaray, inuu maxaa la yiraahdaa horumar sameeyey. taasaa cunugii dhiiranaan siinaysaa laga wadaa. calaa kulli xaal waa intaa qodobka afraad. insha allah qodobada dhiman oo kalena waan soo gelin doonaa. waxaan ka codsanayaa dhammaan inay hadday awoodaan ay subscribe-kana noo saaraan iyo like-ga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.